السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقيرت يوتيوب سلامي عشان waxaan uga hadlaynaa maxay ku kala duwan yihiin admin user oo computerka isticmaalayo iyo standard user. Marka arday ayaa dalbaday in loo kala saaro sababtoo ah uu ku wareeray. Sababtoo wuxuu dhahay standardka markaan joogo markastaba ayaan isticmaalay password ayaa la weydiinaa. Sababta maxay tahay marka adminka joogan aan la weydiinin marka aan ku tuso. marka si aan u kala ogaano marka waxaan sameynaynaa inaan ogaano start menu tag kadibna waxaad tagtaa control bana ku dhufo kadib markaad tagtid waxaad leedahay username-ka ayaa tagaysaa qaybta userka marka user account ku dhufatid kadibna waxaad fiirinaysaa user account-ka kadib markaad ku dhufatid waxa ku soo baxa ujeedaa standard user waxaa loogu talagalay qof aan uu xadidan yahay awood ma u lahan inuu wax kasta isticmaalo laakiin computerka caadi uu isticmaali karaa. haddaba programkan double click siiyo matalan browserkana ku shubno waxaan sameynaynaa open ayaa leenahay inuu ku shubay iyo in kale. marka waxaa lagu yiri to continue sida loo wado tab waxaad sameysaa passwordkii adminka isticmaal sababta awood ma lahan sababta qofka iska lahaa ma bahan computerka ayaa laga wadaa. kadib waxaan leenahay iska cancel start menu ku laabo control baan haddana tag kadib waxaa leedahay uninstall ka tag waxaan isku dayaynaa markaan inaan programka tirno marka kadibna programka waxaan ka tiraynaa tusaale ahaan poweraysogaan ka tiraynaa kadib waxaan leenahay uninstall ayaan leenahay kadib waxa la weydiiyey ma ujeedaa waxa ogaanaysaa qofkan ma awoodo inuu ku shubo program ma awoodo inuu ka tiro computerka waxaa loogu talagalay kii standard inuu caadi u isticmaalo haddii aan passwordka gelino si toos ayuu u shaqeynaa marka no ayaan leeyahay kadib waa iska xiraa haddana waxaan sameynaynaa in aan mar kale aan furno password ayaa laga codsaday haddii aad passwordka gelisid oo yes aan dhahno si uu ujeedaa programka si toos ayuu u qaadanaya marka adminkan waxaa lahaa mas-uulka qofka iska leh maamulka mar waxaan sameynaynaa switch user inaan galno qaybta adminka ayaan tusaa marka qaybta adminka ayaan u wareegaynaa oo axmedka ayaan dooranaa marka axmedka galno kadibna passwordka aan isticmaalno gelino kadibna markaan passwordka isticmaalno okay ayaa leenahay sidaan gudaha u galno marka qofka standardka awood ma u lahan wax kasta saa u aragtaanba kadibna start menu tag sidii hore aan u aragnay control bana kadibna waxaa tegaynaa user account-ka kadibna user accounts aan gelinaa kadib ujeedaa qofkan admin awood uu hayo oo haystaa kadib waxaa leenahay manager another account ayaa leenahay kadib waxaa ujeedaa inuu axmedka yahay administratorka kana standardka yahay kana gastiga yahay marka waxaad ogaanaysaa admin haddii ku hoos qornayn awood muu lahan waxaanu iska xirno marka haddii aad isku daydid in aad adminka awood uu leeyahay sababtoo qofkaas adminka waxaa loo siiyey waxay tahay markaan program kale ku tuso aan isku dayo in program meeshaan ka isticmaalo open aan ka dhaho browserkii aan install u isticmaalo si toos ayaan u isticmaali karaa sababta waxaan awood u leeyahay in aad programka aan rab aan ku shubi karo taasna waxay ku cadeynaysaa sida tusaale ahaan username-ka waxay ku kalataa mobilkaaga caadiga isticmaalaysid root-kana markaa ku samaysidna waa isla sidaan saata shirkadda ninka iska leh ninka shaqaalaha kala yihiin markana fahanteen aan malayna insha allah bina kariim salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran